inaanu Soomaaliya la wareegno 2020ka waxaana uu yiri Erdogan ayaa 2011 shimbir u noqday Soomaalida oo si fudud ku kala daadiyay qorshihii degsanaa hadda sadamaca lagu doonayo in Soomaaliya dib loogu qabsado rag u qamuumiyaysanaya ayaa miiska soo saaray waxa aan doonayaa inay dunida tusaan in Soomaalidu ay soo celin kari weyday amnigii oo hanan weyday dawladnimadii qilkaasina waxa noo suuragelinaya kuwa aan ku dhextarsanay ee qorshaha iyaga qaybta ka ah sidaasi waxay isaga jeediyaan oo ay ku qanciyaan ummadaha ilbaxa ah iyagoo ka dhaadhicinaya in Soomaalida isu tarin karin weyday ayna habboon tahay in loo taliyo 60,000 oo askari oo qaramada midoobay ayaa hawshaasi loo diyaarinaya marka loo baahdo in qorshahaasi la fuliyana waxa ka qayb qaadanaya Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska waa markii ugu horeysay ururka guul la taaban karo uu ka gaaro howlgalladii dhaqangediska ee aan gudaha ka fuliyay madaxii ururka uu iigu hambaliyay sida howlkarnimada iyo nafhurnimada leh ee aan u dhaangeeyay howlo 80 sano oo xanibnaa gacan gudeed oo loo la'aa